شيخ وأبو سلام. بارك الله فيك. سؤال وتا شيخ. هاي نينكا دو حاس لي شات قام قاب ما كشكريا أو ربيس مرخيص بلانكه أنا أرخان أو كشخه wuxuu rabaa ka shaqeeya ninka cowru leeyahay gacmo gaab iyo gacmo dheer kuma xirna murqana layskuma raaco ma aqaan haddii hadda casriga uu yahay nimanka murqa haddii lagu raaco nimanka akhlaaq iyo wanaag iyo waxbaa laysku raacaa laakiin ninka cawradiisa garbaha cawro kamaha ninka gacmo gaab hadduu gashto cawradiisa ma banaynin laakiin haddii fitna la ka ratib mayso oo meeshuu jooga meel dumar joogaan oo fitna ay ka mid tahay inuu asturaa wanaagsan oo afdal wey أرخان وجوجا نعم harqaalihiisa waa dhib badan yihin waa la ogsoon yahay ilaah fududay الو ها شيخ الروضة شيخ أساكل هذا يا أختي الو ها شيخ waxaan ku weydiinaa ها ninkaygiio sakhraana ayaanu isqabanay waa gartay soomaaliya hay dabeetana naag buu guursaday soo sakraan buu naag guursaday haysagoo sakhraansan buu naag guursaday waa gartay dabeetana aniguna waan xaaqoo nin baan guursaday hay inta laygu yidhi meerba kuma hayo ninkan sakhraansan adina ma sakraansaneed ma sakraan meen maya ma sakhraansan hay aniga aad baa laakiin una masayro waan xaaqa waa gartay xoolihiina wuu iga qaaday aan tabcay hay marka ninkaa meher may haya aniga markii dambe way furay ninkii hore horta xaaraana ku dhacday horta adaa ka dembi badan haye maxaa dhacay adigoo nin oo xerigiisa ku jiro inaad nin kala guursato xaaraan way ninkaas waxaas la gasheen iyo ama hadduu caruur kaa dhala iyo ayaa haddii aad zina waxaasna waa zino horta isku tegin waa zino caruurta oo dhalana ninkaad oo sakhraansan oo naagta kala guursada askale maya waxba waan dhalinkii marka arag ilaahay u toobakeen dembi weyn waaye arrintaa dadkan ha u sheegin oo sida calankan oo kale hadda dadka inay maqlaan ma aha si gaar ah inaad culamada u warsataa ku wanaagsan tahay maxaa yeele qofka markuu fuxsha ku dhaco inuu dadka u sheego uu naadsado nabiga alayh salatu salaam almujaahiruun lagu tilmaamo dadka qiyaamaha cadaab adagay helayaan lakin adi hadda cilmi ahaan u warsanaysa lakin ani talaan ku siinaya kaliya haddii aad ilahay tooba keentid ninkaaga hore ninku waa ilaa uu kaa furo hadduu kaa furay marka uu ku furay ninka dambe dhan dhexda ku jiro wax la xisaaba laa ciddaa ka tirsanayni walaa ciddadiisa wuxuu yahay male waa nin oo qalad hadduu ku ogaa asagana dembiga kula jirta oo kula jira asagana hadduu adigu nin ku qabo uu ku ogaa walidaalika dumarka oo ilaahay ka cabsadaan qalbiga adeeg aan hadda kamid ah qofka qalbiga hadduu adkaado waxa ujeeda zina xaaraan ayuu iskaga dhacaya waxay tahay mala waa arkaysa waxa leeyahay islaanta waxaa laga sheegaya soomaali laga sheegay islaanta waxaa leeyahay soomaali nin ku qabay yurub imaanaysa waxay ku leedahay badaa kasoo tallaaba nin kale iska guursanaysa ay diin hada maxaa dhac qalbigeeda jaa qaasi noqday qofkaas waa qalbigeeda qalalay marka haddaaba ilahay hadda aad su-aal diin weydiiso qalbigaaga ilaahay ha jilciyo waxaan ku leeyahay marka wax axkaan ka ratimaysa ninkaas malaha dhexda kaga jiro ama ninka hore ayaa ah hadduu ku furay alxamdulilah markaas nin kasta waa guursan karta ilahin u toobakeen alo ha السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عثمان بصوري مياه. أصولي ها. يا. أصولي وبصوري ما أصولي. شيخ عثمان بصوري يا ربي. بصوري ما أصولي وأصولي. بصوري يا أخي حياتنا كذا في نوادي يا أخي. هاي أساها كل الله. عثمان بصوري. هاي بصوري هل كيف كنت بصوري مقرن. هاي ما قاعد قلد صح لك وأصي. السلام عليكم سيداي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفوري مياه. ها أصولي وهذا صح نعم. هذا صحيح. ها في عنا. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحن كويتنا. ها. اوكي هذه ما ينوي وحن كويتنا شيخ دور أنا ويس خوا. ها. دورتي أنا ويس خوا. ها. أيا هلب جيلان عني. هاي. hilbgeelkii markaan cunay salaadii aan galay haye salaadii markaan galay dad waxay ku leeyihiin hilbgeela cuntay weys qaado ma hilbgeel xalaal mayno xalaal waa isali dhahay in weys qaado weysdu waa ka jabti ma madhab kala qabo qolo culimo qabtaa jirta laakiin adiga kama jibin salaadaha sax waa adiga salaadaha sax waa kama jibin
halo wadaadada kale sheekh waxay ku leeyihiin Waa jira. waa inaa weyse qaadataa wadaadada oo aan isla cunay anaga waa weyse qaadanay adigana weyse qaaday ku leeyihiin soomaali ma joogta adig aniga london aan joogaa sheekh nacam fiiri masalada ah hilibka geela weyse ma jibiya masalada culamadu waa isku khilaafsan yihiin culamo ayaa qabto madhabka xanaabilada ugu badan ayaa waxay qabtaa hilib geela ninka waa iswaajibay xadiiskay soo dilisadeen oo nabiga calayhi salatu wasalaam man akala laxma jusur falyatawada xadiiskaas culamada kale oo madhabka shaaficiga iyo madaahibta kale waxay qabaan in xadiiskaas la nasaqay oo xadiis kale oo mima masatu naar mar hadduu dab galay aan laga qaadanayn marka annaga waa laga yaabaa culamo kale inaa weydisay ay ku yidhahaan geela weys waajibiya lakin annaga waxaan idhaha madhabka shaaficigeena daliil qawina waa haysanaa bal madhabka shaaficiga maahne cumar ibn khataaba abubakara qabo weyse hilib geel inu weyse qabin asarkiisa imaam nawowi keyrkiisa guriyeen cumar ibn khataaba qabo cali ibn abi taaliba qabo cuthmaana qabo afarta khulafaa arashidiin hilib geel waa cunayeen marka weyse qaadina sanadooda waa tukanayeen marka masalada khilaafka culamada waxaa laga yaaba naskiga qolada kale inay xadiiska u gaarin la naskay ogaanin qolada ina ogaanin marka in lagu tashadudo maaha khaasatan ninka soomaaliga ah geelena weyse ma jibiyo dhowr jeer dadka u sheegay geela soomaaliga weyse ma jibiyo ninka markuu sacuudiga joogo maxaa yeelay waxaa la rabaa qofka bii-aduu joogo inuu ixtiraamo markuu sacuudiga joogo hadday dadkaas aaminsan yihiin ama madhabka ay qaateen uu yahay madhab ah weysada geela jib in lagu ixtiraamo sidii imaam axmed uu ugu ixtiraamo qowlka imaam shaafici inuu ku ixtiraamayo qowlka imaam axmed laakiin in shado lagaga dhigo oo la yidhaha qofka sunnaha ka tagtay oo sunnada dhan lagu soo koobay imaam axmed keliya inuu sunnada hayay oo imaam shaafici almatlab alqurayshiy yaa ka sunno badnaa oo nin sunnada ka tega laga dhigo taas waa taa diidanahay ha lagu ixtiraamo dadka dhahaya geel laakiin soomaalida lagu qasbo soomaalida madhabka shaaficiga dhaqan ay u qaateen tacaarafuu calayha asarkooda kamid qofka inuu curfigiisa la siibana ma qabta xataa faqiiha ninka muftiga ah oo soomaaliga uu fatwoonayo war dadku uu fatwoonayo waa inuu yaqaanaa xaajadooda iyo waaqicooda siduu ibnu qayim uu sheegay